دولة مثلا مدير الإمام عليه مدحوينها أحمد محمد إسلام مدحوينها جبلان مدحوينها أحمد حاق أحمد دعاء حاق مدحوينها جلبدل iyo golayaasha xildhibaanada iyo wasiirada dhammaantooda maamul goboleedada iyo sharafka iyo walaalaheen reer puntland oo soo dhaweynta diimeedna soo dhaweeyey dowlada dhalinyarada iyo hoyooyinka iyo dowladda oo dhan dhammaanteed iyo shacweynaha qeybihiisa kala duwan gaar ahaan reer galoowe asalaamu calaykum iyo marka sharafka kale oo nala joogto سلام كدي الله وعسكر إلهي سبحانه كأنه يمكن أيضا نقوم علينا وعلينا غير بطلة سودويت يشرف الروح الغداء مدحوينه عبد الله محمد علي وسيد هذا البيوت المعمري إيمان تمرتين اللي هي سياسي ولا كي هي بطلة موسيقى وشلوي هي مدحوينه يمكن أيضا نقوم علينا سودويت يشرف الروح الغداء رنتي dhibaatooyinka ka jira aniga aada iyo aada aan u dhibsanaynaa galmudug in la dhibaateeyo sax maaha galmudug maanta waxay mudan tahay sidii lagu dhisayna waa loogyahay markii la dhisayay isjiid iyo dhibaatooyinkii ka dhacay wixii ka dhexeeyey puntland iyo galmudug maalintaeda wixii maalintaeda ka dhexeeyey ahlusunna iyo galmudug wixii maalintaas ka dhexeeyey haddii intaas oo dhan maanta inta la dhameeyey in dhibaato kale lagu abuuro dhexdooda waa nasiib daro waxaan ugu baaqaynaa arrintaeeda in laga waantoobo soomaaliya si ay u horumarto runtiina inay galmudug nabad noqoto soomaaliya oo nabad noqotay barkeeda waa runtii haddii galmudug ay nabad noqoto soomaaliya nabad ay noqonayso marka in galmudug oo federalism ogol oo is-hogaaminayso oo ahlusunnada lagu wadato runtii waxaa laga wixii ka dhex jiro in dhibaataa in lagu abuuro aad bay dhibaatou tahay runtii annaga aad aada aan ugu faraxsanahay madaxweyne axmed waalgeele aaf inuu ka gaarkayo baabuurku soo raaco oo maanta ugalow ku yimaado waana runtii wax ku dayasho mudan iyo runtii in marka hogaamihii noocaas ahaa ahlusunnana nabadda ka keenay maanta iskuntiisa alaha qaarkeed loo galo runtii arrin aad aad u qaabdaran waaye dadweynaha iyo dowladda soomaaliyeed iyo shacweynaha soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan iyo walaalaheen reer galmudug waxaa laga wixii jiro in hoos loo fiiriyo laakiin wanaagga maamulka iyo hogaanka aada loo tixgeliyo runtii arrintaana waa ka codsanaya runtii arrinada ukaaleeyaatahay dhinaca kale c i c sharciyadeeda waa la sheegay c i c marna maaha caqabad soomaaliya dad badan oo siyaalo badan mufasira waa aragnay wax kama jiraan c i c waa horumarinta federaaleynta waa horumarinta dadka soomaaliyeed waa ku-dadaalka amniga iyo soomaalinimada iyo isdhexgalka waan ku rajoweynahay madaxweyne axmed iyo aniga insha allah in sidaata ay madaxweyne cabdiweli iyo madaxweyne axmed waalxaafka ay baabuurta isku raacaan in annagana ilaahay wadadaasiyo loo raaco awalna waa loo raaci jiray haddana in loo raaco rajeynana waan ka shaqayn doonaa arrimaha haddii dastuurkaan kasoo qaado dastuurka soomaaliya meelo badan la soo maray dumeelgaarka la soo maray jaartara la soo maray meelaa la keenay laakiin waayadan waxaa umalinaysaa in la rabo in meel aada aysan ku habboonin lagu hayo marka sax maaha anaga dastuurka in dib loo eego ummadda soomaaliyeed loo bandhigo dhibaatooyinka jirana la xaliyo khilaafaadka soomaaliya ka jiro dhinac kastabana sidii loo xalin lahaa haddaan dastuurku la xalinin dhulka soomaaliya ma hadismaayo marka dastuurkii la xaliyo waa laga maarmaan dhinaca kale amniga waa la sheegay oo marar badan aan ku celcelinay shabaab dhibaatooyin badan uu dalka ku hayaa marka waxaa noo muuqata in dowladda dhexe arrinta ayadaa aysan dhibaato badan ku haynin shabaab in lala diro haddii shabaab lala diriro waayana ummadda soomaaliya dhibaato kama baxayaan jeedka waa ka gooyihiin meel ba maramale waa la isku rafaadsiin marka saas darteed anaga waxaan leenahay shabaabka la dirro sidii lagula diraba taladeeda waa in la helo marka c i c waxyaalaha ay ka tashan doonto in shabaab sidii looga diri lahaa ee ummadda looga qaban lahaa maalin walba inay ishahigaan naftoodana higaan ummaddana ay hahigaan wax la fiirsan karo oo runtii la ilaalin karo maaha waxaan rajaynaynaa
caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed arintayda inay fiiro ka yeeshaan oo runtii shabaabka loo diro waa u mahadcelinaynaa walaaleen amisom ee dhiigooda inoo qoran bani aadanka wax hore ku sii waa heli kara laakiin in dhiigu sii waa unin walaalka dhiigoodayna siiyeen inaan anagana ka faa'iidaysano oo ciidamo dhisano oo horey u socono iyagoo oo sharaf ku baxa annagoo ciidamada annagoo nabadda ay ahayd muddo badan ay nagu qaadatay ilaa hata arrinteeda nooma suurtagelin ayagoo inay weligood joogaan uma suurgelayso marka saas darteed waxaa loo baahan yahay arrinta ayada in go-aano laga yeesho fikirna laga yeesho ummadda Soomaaliyeed sidii nabadeeda iyo dowladnimadeeda iyo sharafteeda kuwa dowladiidka ah oo duurka ku jiro ay isaga qaban lahaayeen talooyinka loo baahan yahay oo sidaasi ay rabto inay wax ka qabatay kamid dhinaca kale federaaleynta Soomaaliya federaal ay qaadatay ninkii wax kale ku fikiraayo waqti kalena ay gaadhsiiyo Soomaaliya federaal ay qaadatay federaalkaas horumarkiisa maanta waa u jeednaa alxamdulilah gudub siday ahaan jirtay sida maanta ay tahay waa loo jeedaa waxaana looga daynayaa Puntland federaalka runtii waynu ku horumareen nabadna way ku heleen runtii waan rajaynaynaa maamulka kalena meeshay Puntland gaartay inay gaaraan dowladda dhexe باورkeeda lama diidana hogaaminteeda lama diidana laakiin wixii aan qaadano sharciga ay nagu hogaamiso haddii ay diido wixii anaga aan qaadano sharciga ah oo constitutionkeena warigayo ummadda Soomaaliyeed ayadoo oo dagaalo sokeeye iyo qabiile iyo wax walba ay ku dagaalantay wixii ay ku heshiisay ay qofka ku dhistay oo dowladdan maanta aan ku naaloonayno lagu soo dhisay lagu soo heshiiyey inaan federaal qaadanayno marka federaalku waa in la hormariyaa dalkana saasuu ku hormarayaa nabadda insha allah sidaasaan ku gaari doonaa haddii ilaahay uu gaarsiiyo dhinaca kale doorashooyinka sanadkii hore oo ay maanta federaaleyntugu markaas uu maamuladu markaa la wada dhisay runtii waa la dhamaystiray haba la isku doorto lagu heshiiyey haddana hab lagu heshiiyey la isku doorto bay noqon kartaa laakiin qola shaati ayaga isku cabireen in ayaga ay doorasho ku dhigaan siday rabaan ay u sameeyaan Soomaali mana cutumi doonto mana suura geli karto waa in wax laga heshiiyey dadka oo dhan ay ka arkaan danta Soomaaliyeed laakiin in qolbanteeda laga fiiriyo annaga waxaan leenahay laga heshiiyo hana laga wadan ruwaa badhow waa kaga hadalnay mabaadiyan kaga hadalnay laakiin tafaasiil hoos looma gelin tafaasiisha waxaa loo baahan yahay in inta la galo kadibna wixii lagu heshiiyey baarlamaanka Soomaaliyeed oo Soomaalida u dhantahay la geeyo baarlamaanka marka ansixiyo ama wax ku daro ama wax ka dhimo ama uu diido ama uu ogaado laakiin lama dhihi karo in qolaseeda uu wado lama qaadan karo marka anaga caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in ummadda Soomaaliyeed aan dib loo celinin ummadda Soomaaliyeed in hore loo wado dib heshiisiinta la dhammaystiro dagaalada oo kuwa dowladiidka ah si wada jira oo aan gacmaha laysaysto loo galo dowladduna ay gacan ka dhiibto wax allaala wixii caalamka ka yimaado wax kastoo yihiin logistika iyo saanad iyo wax kastoo yihiin ama dhaqaale in dalka loo qeybiyo laakiin haddii siyaasad loo isticmaalo qoloseeratay u maamusha siyaasaddoodana kuma guulaysanayaan dalkii dadkuna waa ku lugo-ayaan sababtoo Soomaaliya waqtigii ugu fog badnayd oo hub soo gaaro wa maantana anaga ciidamadeena maamulada maalin walba rasaas-la-aan baa loo dhibaato ku gaarta marka in rasaasta siyaasadeeyo ayaga maxaara ku haystaan annagana lagala dhigo kuwa aan shabaabka wala tirinaynin shabaabka dhibaatadiisa anaga ayna haystaan maalin walba hortaada wax lagu qarxiya jididkaan laga xiran dhibaatooyinkana ku jira marka waxaan codsanaynaa in caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed ay fiiriyaan arrinta xaqiiqda la fiiriyo intaa barbaranka la iska dhaafo waxa xaqaa Soomaali xaqeeda iyo dareenkeeda in loo soo dhaafo taasaan rajaynaynaa 2020 waxaan rajaynaynaa Soomaaliya in xaqa isla ogolaatay ay wax ku dhisato taas ayadaana Soomaaliya oo dhan laga rabaa laakiin gaar ahaan in hay'adaha dastuuriga iyo maamulada iyo dowladdu inay wax shaqeyntaan dadweynaha loo qabiyo waa mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa guul shirka waxaan la jeedaa